maamulka madaxda iyo shacabka reer Jubbaland soo dhaweyntii fiicneed ee noo sameeyeen saddexda casho halkaan aan ku sugnayn goobnimada leh martiqaadka leh farxadda iyo reereynta leh intaas ka sokay runtii Jubbaland waxay muujiyeen dadkeedu in Soomaali isku tashan karto in Soomaali ay wax qabsan karto amnigooda ay sugan karaan dhaqaalahooda ay hagaagsan karaan maamulkooda iyo midnimadooda ay ilaalin karaan ayay muujisay waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa ee kale maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe in wax badan halkaan laga faa'iideysto dad khubaro oo waxaas oo dhan sameeyaa jooge taas waa marka ka sokow dalka Soomaaliya runtii anigu hore dhowr jeer waan sheegay meel khatar ayuu ka rogmaya laba arrimood oo dhici karta qofku inuu san waaya aragnimo lahayn hogaamiyaha laakiin iskuma darsoomi karto inuu san waaya aragnimadii iyo wixii loo baahnaa ay sameeyay jirin isla markaasna inuu madaxadkaado dadka Soomaaliyeed oo dhan taladoodii uu ka madax adeego yiraahdo tayda iyo laba qof oo kale oo ila joogta ayaa igu filaanaysa marka runtii taas ayaan daro weeye dalkii meel adag uu ka sii rogmay waxa ka jira cunsurka Soomaaliyeed oo dhan ayaa dagaal lagu qaaday waa qalbi dhagax iyo qadiyadii ONLF waa Djibouti iyo Eritrea oo sayaal Eritrea lagala saftay waa Somaliland ayaa la yiri deeqaha laga goosado wada hadalkiina halka lagu soo gabagabeeyay waa maamul goboleedyada dawlad goboleedyadii oo la yiri colaad baa loo muujinaya marka guud ahaan runtii waxa soo dhamay waxay dhacayaan annagoo u jeedna dadka Soomaaliyeed u jeedaan waxa intaas kaaga sii darsoontay markii intaas oo problem oo dalka gudihiisa ka jirta in la yiri haddana Eritrea iyo Ethiopia xoogii iyo xoolihii dadka Soomaaliyeed oo dhan la rabaa iyo waqtigiiba in lagu baxsho sidii dalalkaas la isugu dari lahaa ama maaragtay wax loo wada qabsan lahaa iyadoo Soomaali ay meesha kala joogto loo yahay marka waxa soo dhamay waxaan isleeyahay waxa lagu qarinayaa fashalka gudaha ka jira dalka iyo maaragtay maamul xumada ka jirta waxa la rabaa in lagu daboolo in meel kale la aadiyo Abiy Ahmed waa arkayseen dalkiisa problem xoogan baa ka jira wiil baa weydiiyay dhalinyarada markuu xamar ka laabtay ayaamii ciidi wuxuu yiri qabiilka uraagada la yiraahdo ama qowmiyadda uraagada la yiraahdo state gaar ah u baahanahay markaas wuxuu ugu jawaabay waxaas lama baahnee xamar baad u shaqo tagaysaa weekendgana Addis Ababa imaanaysaa maxaa ka waxaas ka qusay marka problemkii gudaha ka jiray wadan walba problemkiis hogaamiyaha Ethiopia iyo hogaamiyaha Eritrea kii Soomaaliya saddexdoodu problemyo xoogan ayaa dhulalkoodii dadkii ay xukuumeen ka jira way isku boojeenayaan bay yiraahdeen dhalinyarada xamar booje waa isboojeen laysilawsiinayo problemkii dalka gudihiisa ka jiro la rabo in wax kale oo hulaami ah ceelalo waa in la abuuro marka guud ahaan runtii de dhaqaalaha gudiga maaliyadda ee dhaqaalaha qaabilsan golaha shacabka maalin dhaweyta waxay soo bandhigeen warbixin runtii dadka Soomaaliyeed oo dhan ka yaabisay waana warbixintii labada sano la kaydinayay waa mid la rabay in lagu daboolo miisaaniyadii 2019 la yiri hal keeno iyadoo tii hore 17 la xirin waa mid la yiri kobac dhaqaalaha yimid hal qofna lama shaqaalaysin waa mid ay noo sheegi jireen waxa jira musuqmaasuqi waa la diriray waxa soo dhamay korontadiina la gaarayna heer wasaaradihii dawladda in korontadii laga gooyay iyadoo waxa soo malaayiin la sheeganayo iyadoo la leeyahay musuqmaasuq waligeed ma dhicin wasaarad korontadeedii 2002 in la jaro marka runtii guud ahaan dadka Soomaaliyeed Jubbaland iyo Kismaayo waa hooyo waxay noqotay gogol Soomaaliyeed in meeshaan la dhigo in dadka Soomaaliyeed ay ka tashadaan dalkan meesha uu socday jihad uu socdo jihad sax maahan waajiho qofka lugta xanuunaysa la leeyahay kuma xanuunayse lugtuna waa ku fiican tahay madaxuna waa ku fiican yahay waan ordi karnaa la leeyahay marka dadka Soomaaliyeed goosha iyo odaytinimada iyo Soomaali jacaylka halkan ka jirta waxa rabnaa in lagu badbaasho dadka Soomaaliyeed Jubbalandna waxa weeye waxay noqon doontaa saan u maleynaya meesha Soomaaliya ku heshiin doonto oo runtii dawladda saxda ah ee Soomaaliya taladeedu uu ka imaan doono taasana anaga keentay inaan mudnaanta koowaad siino inaan nimaano wada tashano runtii maalmihii la soo dhaafana meel fiican baa la wada geeyay aad baa u mahadsantahay